fadlan haddaad nagu cusubtaan subscribe saar like gare siina share gare. salaada jimcaha ma laga tukan karaa dalalka uu ka dilaacay coronavirus? golaha sare ee culimada sacuudi carabiya ayaa fadwooday in dadka qaba fayraska corona ay mamnuuc ka tahay salaada jimcaha iyo in ay xaadiraan masaajidada si ay shaacisay wakaalada wararka ee sacuudiga. culimada oo kulan ka yeesha xanuunkan safmarka ee corona ayaa sheegay inay qasab tahay in muslimiinta ay u hoggaansamaan tallaabooyinka ay fulinayaan dowladaha si loo xakameeyo faafinta cudurkaasi dilaaga ah. dhanka kale waxa ay ugu baaqeen dadka looga shakiyay fayraska inay guryahooga joogaan oo ay iskarantiilaan, iyagoo dadka cabsi qaba inuu ku dhaca loo ogol yahay inay guryahooga joogaan haddii xaaladda jirta awgeed uu qofka tukan waayo salaada jimcaha. waxaa laga rabaa inuu tukado duhur caadi ah ee 4 ragcadood ah, ayay sheegeen culimadu. dhanka kale wasiirada diinta iyo awqaafta ee Malaysia ayaa sheegay in dalkiisa uusan saameyn muuqda ku yeelan fayraskan dilaaga ee coronavirus, sida awgeedna ay muslimiintu tukan karaan salaadaha jimcaha. corona ayaa saameeyay dalal badan oo muslimiin ah, waxaana ugu daran Iiraan oo ay 100 qof ugu dhinteen cudurka coronavirus. haddaba xanuunka dilaaga sidee isaga ilaalin kartaa? macluumaad muhiim ah oo kaa caawin kara in aad ka badbaado xanuunka coronavirus. waxaa bilihii lasoo dhaafay dunida aad uga baahan tahay xanuunka coronavirus ee loo yaqaano COVID-19, kaasoo kumanaan dad ah ay ugu dhinteen dalalka caalamka oo dhan. xanuunka oo dhibaatada ka dhalatay haatan dunida laga dareemayo ayaa saynisyahanada caalamka waxa ay sheegeen inay adag tahay in waqti dhow la sameeyo daawo lagu daweyn karo xanuunkan, balse waxay dhakhaatiirta ku taliyeen in daweynta ay mar walba ka wanaagsan tahay ka hortagga iyo sidii dadka ay isaga ilaalin lahaayeen xanuunkaasi. dad badan oo dunida ku nool waxay aad uga walaacsan yihiin xanuunkan, waxaana la sheegay in xanuunkan uu aad u soo rito dadka da'da ah iyo kuwa qaba xanuunada aadka u daran sida macaanka ama sokorta, neefta iyo xanuunada ku dhaca wadnaha. dadkaas ayaa la sheegay inay u nugul yihiin xanuunka coronavirus. hase yeeshee arrintan ugu wanaagsan ayaa in qofku iska ilaalin karo xanuunka coronavirus haddii uu sameeyo tallaabooyinka dhakhaatiirtu ay uga digeen dadweynaha. saynisyahanada iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO gacmaha oo mar walba lagu dhaqo saabuun iyo biyo nadiif ah waxay qofka ka caawinayaan in aysan gacmihiisa ku harin wax jeermis ah ama caabuqa laga qaado xanuunka coronavirus. sidoo kale waxaa lagula talinayaa dadka in gacmaha mar walba la mariyo oo lagu dhaqo alkoolaha jeermiska disha ee loogu talagalay in gacmaha la marsado. arrintan ayay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO sheegtay in marka qofka uu qofacayo ama hindhisoonayo ay jidhkiisa ay ka soo baxaan dheecaan duulduul ah, kuwaas oo laga yaabo inay sitaan xanuunka coronavirus. haddii aad ku dhowdahay qofkaas, waxaa suurtagal ah in waxyaabahaas aad neefsato ama ay gudaha u galaan jirkaaga. markaa ka fogow qofku haddii uu qofacayo ama uu hindhisoonayo.